cadaa al calyaan wuxuu ka mid ahaa 51dii qof ee lagu dilay weerarkii magaalada Christchurch. waalidiintiisu noloshoodu waxay isku beddeshay mid murugo badan. mar kasta waxaan ka fikiraa wiilkaygii caddaa xaaladiisii wakhtiga uu weerarka socday. muxuu ka fikirayay markuu ogaaday inuu ka tegi doono adduunka? ninkan gacmaha ka xiran waa qofka mas-uulka ka ah weerarka. Brenton Tarrant intay maxkamaddu socotay wuu aamusnaa iyadoo laga hadlayay habka uu u soo maleegay weerarkan, isagoo baaritaan ku waday dadka uu bartilmaameedsaday wakhti sanad ka badan. xilligaasi wuxuu weerarka u soo qaaday in uu hubiyo in tirada ugu badan ee dadka cibaadaysanaya ay masjidka joogaan. eedaysanuhu wuxuu sii ogaa kii ay uga badan tahay in ay uga ordaan dadka cibaadaysanaya. macluumaadka ku aadan sida uu dadka u toogtay Tarrant waxay ahaayeen kuwo qaracan badan. dadka iyagoo ka cararayay ayuu xabadda ku waday, meel ay uga fakadaanna ma jirin. Mucaad Ibraahim wuxuu ahaa 3 jir. waxaa lagu dilay masjidka Al-Nuur. 3 xabad ayaa lagu dhuftay isagoo aabbihiis lugta uga dheggan. dadkii badbaaday qaar ka mid ah ayaana BBC-da u warramay. ninka qoriga sitay iyo anigu indhahayaan isku qabannay. waan arkayay ilbiriqsiga uu aniga ila beegsaday. 9 xabadood ayuu igu dhuftay. intay maxkamaddu socotay, hooyooyinka qaar ayaa sharaxay xanuunka ay dareemayaan. ubax ayuu isiin jiray sanad kasta dhalashadayda, laakiin meydkiisa ayaana loo keenay. waan ku cafiyey Mr. Tarrant, maxaa yeelay naceeb iyo argudasho ma aqaan. si aan fahmi karin ayaad iigu xadgudubtay. kuma cafin karo. waxaad isi siisay quwad aad ku qaaday nolosha 51 qof. dembiga keliya oo ay galeenna waa inay muslimiin ahaayeen. imaamka masjidka Al-Nuur ayaa maxkamadda ka hadlay isagoo u sheegay Tarrant in la khalday. waxaan nahay bulsho nabadgelyo iyo jacayl badan ayuu yidhi, oo aan u qalmin dhibaatada aad gaarsiisay. sidoo kale qoyska Tarrant ayuu u sheegay inuu ixtiraam u hayo maadaama ay iyaguna dhibaataysan yihiin. maalmahan soo socdo way socon doontaa maxkamaddu inta aan garsoorayaashu xukunka ridin.